kusoo dhawaada qaybtii sideedaad ee barnaamijkii raxmadda dunida Mustafa sallallahu alayhi wasallam. maantana waxaan diiradda saaraynaa amarkii Allah ee dacwadda raxmadda dunida sallallahu alayhi wasallam. amara badan ayuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu kala kulmay dhanka alle oo ay kamid tahay bilowga suuratul mudaththir oo aan horey u soo sheegnay. waxaana kamid ahaa midkaaga isduubayow toos oo dadka u dig, rabbigaagana weynee, dharkaaga nadiifi, xumaanta ka fogow, dadka ha ku mana sheegan, rabbigaagana u samir. amaradan ayaa ah kuwa fudud marka guud ahaan dusha laga eego, ha yeeshee xambaarsan ujeedo fog, saameyn weyna leh. kow, in raxmadda dunida Mustafa sallallahu alayhi wasallam u istaago u digida dadka oo uusan ka tegin qof ku nool dunidan oo khilaafsan amarada iyo raaligelinta alle, isla markaana uga digo ciqaab adag oo ka imaan karta dhanka alle. labo, weynaynta Allah oo uusan qofna uga tegin kibir iyo isla weyni, iyo haddii uu jirana uu meesha ka saaro oo uu cagta mariyo. qofka muslimka ahina sidaasi si la mid ah ayaa waxaa looga baahan yahay in goor walba uu ku dadaalo horumarinta iyo xiriirka Allah kala dhaxeeyo, isla markaana dadka kula dhaqmo si tawaaduc ah oo aan lahayn kibir iyo isla weyni xadkeedii dhaaftay. 3, nadiifinta dharka iyo ka fogaanshaha xumaanta. qofka muslimka ahi mar walba waxaa la amrayaa inuu isnadiifiyo muuqaal ahaan iyo naf ahaanba, kana nadiifiyo dhammaan noocyada kala duwan ee xumaanta, baraarujin inuu ku sameeyo dadka sidii ay uga fogaan lahaayeen waxyaabaha xun ee aan alle raaliga ka ahayn, taasoo hoos imaanaysa alle raxmadiisa, ilaalintiisa iyo nuurkiisa, si uu markaasi raxmadda dunida Mustafa sallallahu alayhi wasallam u noqdo tusaalaha ugu sareeya ee bulshada caalamka. inuu markaasi noqdo qof soo jiita qalbiyada saliimka ah, inuu hagaajiyo haybadda qalbiyada wanaagsan. qofka caadiga ahina waxaa laga doonayaa inuu tusaale u ka dhigto raxmadda dunida Mustafa sallallahu alayhi wasallam, waayo isagaaba na baray in nadaafadda ay tahay iimaanka barkiisa, muhiimna u tahay qof waliba, jir ahaan, dhar ahaan, naf ahaan iyo qalbi ahaanba. mana wanaagsana qofka inuu u xagliyo dhanka xumaanta, ayna habboon tahay inuu ka fogaado, dadkana kala fogaado, waayo waa amar ilaahay ah. mar haddii suubanahayna nabadgelyo iyo naxariis alle dushiisa ha yeele la amrayo, anagana waan ku gowracannahay. sidoo kale raxmadda dunida Mustafa sallallahu alayhi wasallam ayaa waxa uu noo wakiishay inaan dadka gaarsiino hal aayadba ha noqotee, maadaama isaga dadka loo diray, anagana wuuna diray si aan dadka u gaarsiino wixii uu na soo gaarsiiyey. dabcan waana noo fududeeyey waxaan dadka gaarsiinayno, wuxuuna yidhi hal aayadba ha noqotee, waana sharfay isaga oo noo sheegay inaan annaga isaga ka wakiilnahay. 4, inuusan raxmadda dunida Mustafa sallallahu alayhi wasallam ku galad sheeganin wuxuu markaasi samaynayo oo wanaaga, ha yeeshee hawshiisa iyo dadaalkiisa mar walba uu wato, dadaal badan iyo nafhur uu ku bixiyo shaqada loo xilsaaray oo ah dacwad gaarsiinta bulshada caalamka. aayadda ugu dambaysa ayaa waxa ay tilmaamaysaa inuu la kulmi doono caqabado tiro badan oo tiro beel ah, oo ay ka mid tahay madax adayg, qallafsanaan, isla weyni, jees iyo dadaal loo galo dilkiisa. raxmadda dunida Mustafa sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisa, iyo baabi'inta dhammaan ciddii ku shaqo yeelata howlahani oo dadka alle iyo rasuulkiisa rumeeyey ka mid ah. alle ayaa waxa uu amrayaa inuu u samro dhibaatooyinkan ku soo fool leh oo dhan, oo uu raaligelinta alle dartiisa loo samaynayo. wixii isaga la amrayna annagana waana la amray. amaradan ayaa ah kuwa fudud guud ahaan marka dusha laga eego, hase ahaatee taabigelintooda ayaa ah mid aad u culus, waayo waa fariin ku socota caalamka oo dhan. sidoo kale
aayadahan ayaa waxa ay soo koobayaan arrimaha ku saabsan dacwadda Alle iyo gaarsiinteeda. digniinta qudheedu waxa ay ku tusaysaa in howl kasta la qabto ay caaqiba leedahay oo uu markaasi la kulmayo qofka hawshaasi wada. waxaana xusid mudan qof kasta oo shaqo wanaagsan qabta abaalmarinteedu waxaa laga yaabaa inaad kala kulantid dunidan aanu ku noolnahay. ha yeeshee midda aakhiro shaki kuma jiro inaad la kulmaysid, xitaa haddii ay yihiin wax aad u yar oo wanaag ku samaysa. aayadahan oo dhan ayaa waxayna tusayaan cibaadada Alle iyo tawxiidkiisa, isla markaana aan Alle u tala saarano arrimaheena oo dhan, kana tagno raaligelinta nafta iyo dadka oo aan ku dadaalno raaligelinta Alle. waayo raaligelinta dadka waa yool aan la gaari karin, hase ahaatee raaligelinta Alle waa yool fudud oo la gaari karo. haddana waxaynu u gudbaynaa dacwadda Alle iyo marxaladihii ay soo martay. suuragal waxaa ah inaan u qaybino dacwadda rasuulka sallallahu calayhi wasallam laba marxaladood oo ka duwan midba midda kale. kow, marxaladda ugu horeysa oo ah marxaladii dacwadda ee magaalada Makka oo ahayd 13 sano ku dhowaad. labo, marxaladda labaad oo ah marxaladii magaalada Madiina oo ahayd 10 sano oo dhammaystiran. marxalad kasta waxa ay leedahay waxyaabo u gaar ah iyo daruufo u gooni ah oo ay soo martay. waxaynu u qaybinaynaa dacwadda raxmadda dunida Mustafa sallallahu calayhi wasallam ee magaalada Makka 3 marxaladood. marxaladda koowaad waxay ahayd marxalad sir ah, waxayna soo socotay 3 sano. marxalad ay ogaadeen dadka reer Makka bilowgii sanadkii 4aad ee nebinimada ilaa sanadkii 10aad. marxaladda saddexaad ayaa waxay ahayd marxalad dacwaddu ay ka socoto meel ka baxsan magaalada Makka, taasina waxa ay bilaabatay dhammaadkii sanadkii 10aad ee nebinimada ilaa hijradii magaalada Madiina. bal aan eegno marxaladda koowaad ee dacwadda. 3 sano dacwadda waxay ahayd mid sir ah. sida la wada og yahay, magaalada Makka waxa ay ahayd xarunta diinta Carabta, waxaana ku ooleed Kacbada. dadkana waxay caabudi jireen sanamyo ay gacmahooda ku samaysteen. in dacwadda raxmadda dunida Mustafa sallallahu calayhi wasallam uu waday la gaarsiiyo waxa ay ahayd mid aad u adag, taasoo ay ugu wacan tahay dadka reer Makka oo dhuuxa iyo lafaha ka gashay caabudidda sanamyada. sidaa darteed go'aanku wuxuu ahaa inaan loo keenin dadka islaamka qaatay halis iyo masiibooyin kaga imaada soona waajaha noloshooda. xigmadduna waxay ahayd in dacwadda sirtaasi ku sii socoto si aan kedis ugu noqon reer Makka. diintan suuban ee raxmadda dunida Mustafa sallallahu calayhi wasallam loo soo wakiishay faafinteeda. raxmadda dunida Mustafa sallallahu calayhi wasallam waxa uu ka bilaabay dacwadda dadkii ehelkiisa ahaa ee ugu soo dhowaa, waxaana ugu yeeray islaamka intii uu ku kalsoonaa oo khayrkana u saaxiibka ahaa, uuna garanayay iyagana ay garanayeen runtiisa, ammaanadiisa iyo wanaagiisa. wayna ka aqbaleen, waxaana kuwaasi lagu magacaabaa dadkii ugu horeeyey ee soo islaama. waxaana ugu soo horeeyey xaaskii raxmadda dunida Mustafa sallallahu calayhi wasallam ahaydna hooyadii mu'miniinta Khadiija bintu Khuwaylad, ilaahay ka raali noqdee, mawlihiisa Zayd bin Xaarith bin Shurxabiil al-Kilaabi, in adeerkiisa Cali bin Abi Taalib. wuxuuna ahaa ilmo yar oo ku noolaa guriga raxmadda dunida Mustafa sallallahu calayhi wasallam, isaga ayaana mas'uuliyadiisa hayay. saaxiibkiisii ugu soo dhowaa Abubakr as-Siddiiq radiyallahu canhu. dadkaasi waxay soo islaameen maalintii ugu horeysay ee dacwadda raxmadda dunida Mustafa sallallahu calayhi wasallam u soo bandhigay. Abubakar, ilaahay ka raali noqdee, ayaa doorkiisii weynaa ee dacwadda islaamka qaatay. wuxuuna ahaa nin si fiican looga yaqaan magaalada Makka, sharaf weyna ku leh. waxa uu iman jiray rag reerkiisa ka mid ah si markaasi uga faalloodaan arrimo ku saabsan reerka iyo ganacsigii Abubakar, ilaahay ka raali noqdee, uu ku caanbaxay. waxa uu bilaabay in dacwadda ugu yeero dadkii markaasi uu kalsoonida ku qabay.
abubakar ilaahay ka raali noqdee dadkii ugu horeeyay ee islaamka ugu yeeray waa ay ka aqbaleen waxaana ka mid ahaa Uthman bin Affan, Zubayr ibn Awam az-Zahrayaan, Talha bin Ubaydullah at-Taymi. saddexdaas qof waxay ahaayeen dadkii ugu horeeyay ee soo islaama. sidoo kale dadkii ugu horeeyay ee soo islaama waxaa ka mid ahaa Bilaal bin Rabaax al-Xabashi, dabadeedna aaminkii ummadan Abaa Cubaydah Caamir ibn Jarraax oo reer Bani Xaarith bin Fahri ahaa, Abu Salama bin Abdul Asad, Arqam bin Abil Arqam, Uthman bin Madcuun iyo walaalihiisa Qudaama iyo Cabdullaahi, Cubaydah bin Xaarith bin Cabdul Muttalib bin Cabdul Manaaf, Saciid bin Zayd al-Cadawi iyo xaaskiisa Faadima bintu Khataab, Cumar ibn al-Khataab walaashiisa Khabaab ibn Arath, Cabdullaahi ibn Mascuud al-Hudari. dadkan aan soo sheegnay magacyadooda waxa ay ahaayeen dadkii ugu horeeyay ee soo islaama, dhammaantoodana waxay ahaayeen Quraysh, tiradooduna waxay kor u dhaafayeen 40. Ibn Isxaaq ayaa waxa uu cadeeyay in rag iyo dumar badan ay qaadanayeen islaamka ilaa warka ku saabsan islaamka uu gaaro Makka, dadkana ay bilaabeen inay ka hadlaan. dadkan aan soo sheegnay oo dhan si sir ah ayay ku soo islaameen. raxmada dunida Mustafa sallallahu alayhi wasallam waxa uu la qaadanayay kulamo diineed sir ah, uu ku barayay diinta dadkii soo islaamay, sababtuna waxay ahayd dacwada oo sir ahayd. waxyigana si isdaba joog ah ayuu u soo degayay, wuuna soo kululaanayay maalinba maalinta ka dambaysa kadib markii ay soo degeen aayadaha ugu horeeya ee suuratul Muddathir. haddaba qaybtan 8aad ee barnaamijkii raxmada dunida Mustafa sallallahu alayhi wasallam halkaasi haynoo joogo. waa Maxamed Cali Juxa oo idinkaga tagaya. salaamullaahi calaykum.